mid baa tukaday salaad jahri ah ha markaasuu qul yaa kaafiruun ku tukaday qul yaa kaafiruun oo kii miirka qabay ay ku adag tahay mid wax soo cabay oo maqas leebay ku noqon markaasuu iska wada hor keenay أعبدوا ما تعبدون أنتم تعبدون ما أعبد إنا نعبد ما نعبد وحيو دم بو اسكو ودا لبay markaas la yaabo leey waa ku yar kaafir baxay helay khamriga inuu xaraan yahay quraanka waxa lagu sheegay imsa marxaladood saddex marxaladood yasalunaka aan al-khamr wal maysir khamr iyo qumar ayay waxagooda wax ka weydiin xukunkooda qul fiihima ismun kabiir waxaad ku tiraahdaa dambi weyn baa ku jira wa manaaficu linnaas waxtarna waa leeyahay khamriga iyo qumaarku waxtar waa leeyahay haada waa xagga ganacsiga day waxbad kala iibsataan kala iibsiga ayuu laakiin aayada kood maxay tiin markii koowaad ba wax xaraan lama oranay maxaa la yiri soo iimaydi weydiinin horta dambi weyn baa ku jira dhibtiisa badan laakiin in yarood ka manaafacaatan ba ku jira koow wala sii waday yaa ayyuhalladina aamanu la taqrabu salata wa antum sukara mid baa tukaday salaad jahri ah ha markaasuu qul yaa kaafiruun ku tukaday qul yaa kaafiruun oo kii miirka qabay ay ku adag tahay mid wax soo cabay oo maqas leebay ku noqon markaasuu iska wada hor keenay أعبدوا ما تعبدون أنتم تعبدون ما أعبد إنا نعبد ما نعبد وحيو دم بو اسكو ودا لبay markaas la yaabo leey waa ku yar kaafir baxay helay soo ninki isku celceliyay aayadan baa tir marka yaa ayuha alladina aamanu warduurka iimaanka laga helo horta la taqrabu salaata horta salaad ha u dhawaanina goorma wa antum sukara markaad soo cabtaan sakhraansantihiin bar horta ha tukanina markay shanta saacadood ka dhamaadeen salaada cisho kadib marka hadda waxa inta hore laakiin salaada ha qaldina waa marxaladii labaad yaa ayuha alladina aamanu ردولك إيمانك لجاه لو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ها رجس من عمل الشيطان ما حيسمى هذا بقى فاجتنبوه لعلكم تفلحون مدينة كسودة دكتي هامو يو برميل سو برميل أفسمان معه برميل هذا لو شبه خمر لو شبه مقالون كي يال مدينة أي مركي لا يري فاجتنبوه كفوغادا أي محي بلابين انت يسوق هذا أولو أي هامه لا دعين خمر جيبه مدينة صحابة waxay leeyihiin maradaanu kor uga qaadan jirnay qulqulkii khamrigu ha oo qulqulay marka waa manhajku islaamku wax ku bedelo markuu rabo wax inuu bedelo muxuu soo marayaa tadriij aayar illa ay dadku kula ay kula qaataan taas waa qodobka labaad ee quraanka aad ku arkaysaa waxa weey xagga isbedelka oo taa waxaad kula dhaqmi kartaa macallimiintu ardayda kula dhaqmi karaan capacity-giisa qaadita ardaygan intee leeg buu qaadi karaa fahamkiisu intee leeyahay commitment iltizaamkiisu intee buu leeyahay mar kaliya ma soo wada daadagayo ayar sidii guri la dhisayo kala ilmaha maankiisana isagana maxay tolay loo dhisaya qodobka labaad ee quraanka aad ku arkaysaa markuu taqyiirka ka hadlay waxa weey waaqica markaa jira runtu ka sheegaya nabigu muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aniga uu yiri waa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo anbiyadii iga horeeyay tusaale han idinka tusay dhageysta aniga iyo anbiyadii iga horeeyay waxaanu nahay sidii nin guri dhisay gurigan oo kale aad u qurxiyay kadibna dadkii ay bilaabeen gurigii inay daawadaan alla qurux badana alla fooqa alla daaqadaha meel walba saasay u dawaafayaan gurigii deedna waxay arkeen meel ka durugsanoo meel jaajuur ka maran yahay halkaas oo kale jabanoo jaajuur inteedii ay maran tahay markaas dadkii maxay leeyihiin alla gurigu qurux badana inta uun ma lahe ma la awdo u dhamaystirmi lahaaye markaas nabigu muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam aniga ayaa jaajuurka maqnaa ana halka awdayo nabigu sallallahu alayhi wasallam muxuu markaa nabigu muxuu qiray dadkii ka horeeyay shaqadii ay qabteen anbiyadii ka horeeyay shaqada ay qabteen buu qiray markaas dhamaantood muxuu yiri gurigii way qurux badnaysiiyeen maxaa ka dhiman in yar intiina aniga ayaa awdaya maxaa la rabaa markaa
keligaa ma tihid wax garanaya keligaa ma tihid kii adduunka hagaajiyey hortaa shaqaa la qabtay waxay yidhahdaan afka gaalada waxay ku yidhahdaan appreciation التقدير لمن سبقك dadkii kaa horeeyay macallimiintii quraanka noo soo dhigtay dadkii masaajida horteen ku tukan jiray odayaashii iyo hooyooyinkeen inaga horeeyay horteen soomay ee horteen tukaday ee horteen xijaabay baashu ma imika timid mise in laga horeeyay kuwii hore maxay laga rabaa markaa xadiis kale nabigu wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam isagoo waaqici la tacaamulay muxuu yiri inma bu'istu لأتمم مكارم الأخلاق كلمة لأتمم هلكا هوس واحد بدن كو هوس قرو واحد كلمة يهبو والله يصدري وحلا يصدري أو كلية بيوري إن لما يستروا أخلاقنا ونأكسر يعني محو النبي يقول صلى الله عليه وسلم مجتمعي غير قريش النبي يقول كسر نحبحي أخلاق في عم بيلهايين أخلاق حنا وي لهايين intoodii fiicneed nabigu u qaraya sallallahu alayhi wasallam wax fiican geesinimay lahaayeen deeqsinimay lahaayeen ku dhacbay lahaayeen dulli ma qaadan jirin sharaf bay lahaayeen intaas oo dhanba waa shay fiican oo islaamku uu ogol yahay adiguna mujtamacaaga marka aad ku dhex jirtid wax badan oo fiican buu leeyahay mujtamac oo dhanna wada jaahili ha ka dhigin mujtamac wada dawaqsan ha ka dhigin intiisa fiican aqbal inta aad isleedahay way ka dhiman tahayna ku koobo waxa tiraahdaa jaajuurkaas ayaana marka uu qofku ka maqlo wana waa la soo shaqeeyo quraankii waa la soo dhigi jiray waa laga soo shaqeeyo halkana la soo gaarsiyo aniguna halkaasaan ka qaadayaayo halkaasaan geynaya anna qof baa iga dambayn doono halkii ka qaadiyo isaguna dhamaystiran laga didi maayo lagu la dagaalami maayo laana maxaad qirtay dadkii ka horeeyay ayaad qirtay isbedelka kadalika quraanku uu sheegay waxa kamida oo qofku markuu hogaanka yahay الحزم وعدم وهجان adag qofku aanu leeyahay lama rabo marka maxay toolay meelaha qaldan lama rabo maxay jiljilaac lama rabo go'aan buu ku dhacay nabiga sallallahu alayhi wasallam Makka jooga ayuu adeerkii Abi Talib oo cad ah ayay Quraysh u yimaadeen oo yiraahdeen adna waad sii socotaayo sakaraatul mawt baad ku taagantahay inankaagiina waanu sahaynaa inanka adeerka oo haydna waanu sahaynaa adeer noogu yeero inankaa wax kastuu doonayaanu siinanaa habla hadduu doonayo tan noogu qurux badan baanu u guurinaynaa adduun hadduu doonayo kan noogu taajirsan baanu ka dhigaynaa boqor hadduu doonayo Quraysh oo dhan buu boqor u noqonayaa wuxuu doonayaanu siinaynaaye adeeroo diin cusub buu nagu dhex wadaaye nagala hadal inankaaga Abi Talib baa yiri halla igu yeero nabigii baa loo yeero adeerkaada ku doonayay sallallahu alayhi wasallam agtiisu soo fadhiistay Quraysh oo dhan oo gaaladii waaweyn Abu Jahl hor kacayna halkan ay fadhiyaan markaasuu Abu Talib oo jiifada adeer la hadlay nabigeeniyo yiri tolka waa kuwa odayaashii reerku waa kuwa adeero waa dhibtay waana ku dhibsanaya ana iga soo ashjokoodeen inta noolahay ana ku garab joogo ku hiilinaya cad baan oo sariir baan saaran oo aan ceel sii dhacdaanahay birtooda waxaan ka baqayaa idinka adiga iyo iyagu inaad isku baxdaane adeero maqal kelmadooda maqalo maanta iyaga u hoggaansan buu ku yiri waa maxay iyagu maxay doonayeen markaa maxay nabiga ka reebeen Quraysh gaalnimay ka reebeen soo maaha oo annaga nagu soo biir soo maaha halka maxaa raba markaa qofku inuu yiraahdo bal waa yahay 50-50 mise inuu go'aan adag qaato nabigu wuxuu ku yiri adeer biir sallallahu adeer biir kelmadu baaba ka doonay wax kale kama doonayaba markaasuu Abu Jahl yiri ma kelmad baad nagu dawaqisay waan ku siina dheh wallahi toban baab ku oran haday waxba kelmad kaliya tahay markaasuu yiri waxa tiraahdaa adeer waxaad ku tiraahdaa ha yiraahdaan qulu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kelmadaas ay deeqda kelmadaa waxa yiraahdaan buu markaasay hoosta ka wada guuxeen markaasuu kelmadan u yiri marka adeer buu dhageysaado adeerkay baa tahay dhageyso wallahi baan ku dhaartay haday cadceeda soo dhaadhiciyaan oo gacanta midigii saaraan dayaxana soo dhaadhiciyaan oo gacanta bidixii saaraan oo igu yiraahdaan cadceeda iyo xidigahaba sid ilaa yawma qiyaamuhu dhacayo walle waan sidii buu yiri habeena ka hagran maayo diintana bedeli maayo illa ilaahay diintiisa u hiilinayo
adeer buu yidhi diintaasaad igu og tahay iyaga iska daaya adeer adigu dhe buu yidhi laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah iyaga ha inoo dambeeye adigu dheh laa ilaaha uxaajuka biha cinda allahi yowma alqiyaama kelmadda ii dhe buu yidhi ergo yowma alqiyaama ilaahay ha kaaga noqdo waa markaa hogaanka eeg waa markuu mowqifku u adkaado inaad maxay leedahay ku dhac inaad leedahood go-aankeeda iyadna maxay toole aada leedahay qodobka afaraad waxa weeye qur-aanku ka hadlaa asabru cala atagyiiri isbedelku muxuu u baahan yahay sabr dulqaad ma soo boodo fasbir kamaa sabara ululcazmi minar walaa tastacjil lahu ha degdegin sabr shantii nebiye kaa horeeye ululcazmigu siday u sabreen adiguna nebi maxamedow u sabr adiga ardayga markaad wax baranaysid sabri baa lagaa rabaa qur-aanku sabri buu kaa rabaa waxbarashadu sabri bay kaa rabtaa soo jeed habeen bay kaa rabtaa ku celceli bay kaa rabtaa salaadu sabr bay kaa rabtaa qiyaameelku sabr buu kaa rabaa hooyo iyo aabba ateecoodu sabr buu kaa rabaa edab iyo akhlaaq sabr bay kaa rabtaa cid ha caayin sabr bay kaa rabtaa qof baa kugu xadgudbay u dulqaado ma naqaana mise ma naqaano mise waynu ka rifnaa qof baa kugu sii siibtay ardayda ah iskaga dulqaado fi sabiil khalle insha allah sabr ma rabtaa sabr ma rabto qof kaa gardaran ood ogta inuu kaa gardaran yahay kaana xoog badnayn ila hadduu kaa xoog badan waad ka yar baqi leene kaamana xoog bado dhulkaad waad ugu shubi kartaa haddana maxaa kaa qabanaya sabr fasbir kamaa sabara ululcazmi min arusul nacam الله المستعان وعليه تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير درسيga waxaan usoo diyaariyey horta dadii ka waaweyn baan usoo diyaariyey kowdha darsiga waxaan ugu soo talagalay waxaan moodayey marka intaasi waa idinku filan tahay aamin dhahda ilaahay dembigeena ha dhaaf dembiga waalidiinteena ha dhaaf kii hadlayena wuxuu hadlayay ilaahay dar ilaahay ha u ahaato intii dhagaysanaysana qalbigooda iyo laabtooda allah subxana watacaala ha dhig qur-aanka allah haynagu anfaco diintana allah haynagu anfaco waalid ateec ilaahay haynaga dhigo macalimiintooda kuwa maqlo allah haynaga dhigo kuwuu qur-aanku fadhiisiiyey uu qaboojiyey uu ku degay uu ku duxay allah haynaga dhigo han iyo himilo sare allah hayna siiyo han iyo himilo sare allah hayna siiyo dad waaloo muslimiin oo jecel allah haynaga dhigo khaatimadan allah haynoo hagaajiyo islaamka ilaahay ciz iyo sharaf ilaahay ha siiyo kuwii islaamka u shaqeeya ilaahay haynaga dhigo kuwii ilaahay jecel ilaahay haynaga dhigo kuwii ilaahay ka jeesta ilaahay subxaanahu watacaala inagama dhigo waalidiintii inagu soo daalay inta nool sharaf iyo maqaamkooda kor allah ha ka yeelo inta xijaabitana qabriga allah ha u nuuriyo waalidiintayna inagu soo daalay inta nool sharaf iyo maqaam allah ha siiyo inta goodayna qabriga allah subxaanahu watacaala ha u nuuriyo wasala allahuma wasalam wbaarak calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam jazakum allahu khayra